xalay hurdada kuma raaxaysan mucaashaqiinta Manchester sababtana waa in ay ku qarwayeen wacdarihii Old Trafford uu ka dhigay Mohamed Salah saakayna wuxuu waaga u baryay iyagoo lumiyay meeqaam kasta oo ay ku dhaxlahaayeen bulshada ku nool adduunkan ileen iyaga lagu maadaysanaya haddii Mohamed Salah dhawaan uu u xaqiijiyay jamaahiirta Liverpool ilaa iyo maalintiisa ugu dambaysa kubadda cagta inuu ku qaadanayo gobolka Merseyside iyo magaalada Liverpool qasatan Anfield Stadium Jurgen Klopp isna wuxuu qiray inay u ahayd farxad weyn maqalka hadalka ka soo yeeray laacibkani reer Masar habeenka dhaafay oo ay ku qaadatayna Liverpool magaalada Manchester waxaa si weyn loogu amaanay midowga difaac oo ay samaysteen kulankaasi aadka u weynaa ee noqonayay derbiga Ingiriiska Ibrahima Kanuta iyo weliba Van Dijk Ibrahima ayaana ka soo baxay kalintiisii difaacnimo waxaana uu hoosaasiyay laacibkii reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oona noqday maqana joogaha kulankan waxaana uu lumiyay xakamayntiisii oo waa tii la arkay isaga oo ka daba wareegaya wiilka da'aada yar ee Jones goolhaye David De Gea oo isagana ah nin xaqiiqada loogu yimaado ciyaarta kadib waxa uu yiri been ma sheegayo oo waxaan u ciyaarnay sidii caruurtii oo kale Lingard oo dhaleecayn badan kala kulmay taageerayaasha Manchester isagana wuxuu barahiisa bulshada ku soo qoray ma joogi garoonka taasi oo jawaab u ah taageerayaasha Man United ee aflagaadada u geysanayay macallimu Ole Gunnar Solskjaer oo isagana haatan lumiyay meeqaamkii uu ku aglahaa taageerayaasha Manchester waxa la hordhigay inuu wax ka yiraahdo wuxuuna aayar yiri ma sahlana inaan wax ka iraahdo laakiin waa wixii ugu adkaa ee aan wajaho inta aan ku jiro xirfadda macallinnimo ama aan hogaaminayo Manchester habeen waxaa soo martay Manchester ay dhex mushaaxday badsida taamujada madow taasi oo ay awoodi weysayba inay iska tiiriso waana qubadii ka socotay gobolka Merseyside ee Liverpool sidoo kale waxay ahayd habeen qirasho lagu sameeyay in Mohamed Salah uu yahay midka ugu sareeya adduunkan waqtigan aynu joogno iyo horyaalka ugu xamaasada badan qaaradda Yurub ee Premier League waana wax ay huma ka saarnayn qof kasta oo daawada ka ahaa ciyaartii sida xun uu u burburiyay difaacyadii Manchester kana dhacday Old Trafford kulankaasi uu ka dhaliyay ilaa iyo 3 gool salaanta mucaashaqiinta Manchester ee waqtigan ayaana noqonaysa shalay oo waa waxayba ka shalaynayaan wixii ay ku dhigtay kooxdii Jurgen Klopp waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixinadan ilaa iyo dhamaadkooda waxaan ahay Maxamed Cabdirisaaq Tolman